السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دaawadee Ramadaan wanaagsan. Allah inaga aqbalo acmaasha suuban. Waxaan halkan kuugu soo gudbin doonaa qaybtii labaad ee barnaamijka Buugga Zaad iyo Sahayda Ramadaanta. Sidaan hore u soo sheegnay, barnaamijkeenan waxaa marjic u ah Buugga Zaad ee uu qoray qoraaga Carabka ah ee lagu magacaabo Islaam Jamaal. qaybtan qoraagu waxa uu ku bilaabayaa miyaad maqashay warkooda kaalay aan kaaga sheekeeye waxay ahaayeen hodanka jannada. badigeenu waan garanaynaa 10kii saxaabi ee loogu bishaareeyay jannada waxaana yaraanteennii la inoogu dhigi jiray dugsiyada. magacyadooda waxaa si fudud loogu soo koobi karaa xarfaha ah 4 3 2 iyo 1 oo ah xarfaha ay ka bilaabmaan magacyadoodu. 4 ka mid ah waxay ka bilaabmaan xarafka ca oo waa Cumar, Cuthmaan, Cali iyo Cabdiraxmaan bin Cawf. 3 ka midana waxay ka bilaabmaan xarafka a oo waa Abubakar, Az-Zubayr bin Cawaam iyo Abu Cubayda bin Jarraax. 2 ka mid ahna waxay ka bilaabmaan xarafka sa oo waa Sacad bin Abi Waqaas iyo Sacad bin Sayd. ka u dambeeyana waa xarafka da oo waa Talha bin Cubaydillaah. macallimiintu markii ayna barayeen magacyadooda inoomay sheegin inay jireen 10 ka mid ah oo hodan ahaa, hantidooduna haddii waqti xaadirkan lagu qiimeyn lahaa waxay noqon lahaayeen kuwa ugu taajirsan caalamka. sidaa darteed waxaa jira dad qani ah oo wanaagsan sida ay u jiraan kuwa faqiir ah oo wanaagsan. waqtigii Nabiga sallallahu alayhi wasallam way la noolaayeen kuwa faqiir ah iyo kuwa taajiriin ahiba, waxaana uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam kuwa fuqarada ah u sheegay in fadliga jannada loogu kala dheereeyay xagga hijrada ee aanay ahayn faqiirnimada. qofka qaniga ah khasab ma ahan inuu noqdo mid xumaan oo dhan koobsaday dadkana maalkooda cunaa si uu qani u noqdo, laakiin isagoo wanaagsan ayuu haddana hodan noqon karaa. maalkuna waa quruxda basharka. marka aad u fiirsato oo dhaahyada dhagaheena ku soo noqnoqda waxay inoogu yeedhayaan xagga faqriga iyo inuu wanaagu ku jiro inuu qofku ku noolaado nolol hoose. markaas ayay naftu dhankaa u yeelanaysaa waayo iyada ayaa fudud, gaadhitaankeeduna uma baahna camal joogto ah iyo soo jeed sida taa cagsigeeda ay hodantinimadu kaaga baahan tahay dadaal. haddaba aynu soo qaadanno tusaalayaal ka mid ah dadkii ummaddan ugu fadliga badnaa ee haddana hodanka ahaa xagga adduunyada. Abubakar As-Sidiiq. Nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu yidhi haddii aan saaxiib dhow samaysan lahaa Abubakar ayaan ka dhigan lahaa, laakiin Ilaahay ayaa khaliilkayga dhow ah. Abubakar idinma dheera salaad iyo soom badan, laakiin waxa uu idin dheer yahay shay dega qalbigiisa. ma jirin qof aan diinta islaamka ugu yeedhay oo aan lahayn joogsi iyo hakasho ilaa Abubakar mooyaane, isagu ma uusan hakan. Abubakar waxa uu ka mid ahaa madaxdii Quraysheed. waxa uu ahaa qani akhlaaq badan oo dadka isku keena. waxa looga iman jiray meelo fogfog iyada oo la og yahay la dhaqankiisa wanaagsan. waxa uu ganacsi ugu safray magaalooyin badan. waxa uu gaadhay Basra oo Shaam ku taala. waxa uu ahaa hodan reer Quraysheed ah oo deeqsi ah. khamriga ma uusan cabi jirin xataa islaamka ka hor. markii la weydiiyeyna waxa uu yidhi waxaan ilaashanayaa sharaftayda iyo dadnimadayda waayo khamrigu labadaaba wuu tagsiiyaa. waxa uu ahaa qofkii ugu horreeyay ee islaamay xagga ragga, waana qofkii ugu horreeyay ee Nabiga sallallahu alayhi wasallam salaad la tukada. waxaa gacantiisa ku soo islaamay 5 ka mid ah 10kii jannada loogu bishaareeyay iyagoo adduunka dul lugaynaya. waxay ahaayeen Cuthmaan bin Cafaan, Az-Zubayr bin Cawaam, Talha bin Cubaydillaah, Sacad bin Abi Waqaas iyo Cabdiraxmaan bin Cawf. Bilaal waxa uu ahaa addoon. markii uu islaamay ayaa sayidkiisii uu dhibaato xoogan mariyay si uu islaamka uga noqdo. waxa uu u diiday cuntadii iyo biyihii. waxa uu ku xidhxidhay bacaadka saxaraha, laabtana dhagax ayuu ka saaray, cadaab daran ayuu mariyey. markii uu Abubakar arrintaasi ogaaday waxa uu u tegey sayidkiisii waxaana uu kaga iibsaday 40 qiyadood oo dahab ah, waana uu xoreeyey. sidaasi oo kale ayuu u xorayn jiray addoommaha soo islaama ee ducafada ah si uu dhibaatadaasi uga saaro. sidaas darteed ayuu Nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu yidhi maalna iimu anficin sida uu ii anfacay maalka Abubakar. Cumar bin Khattab radiyallahu anhu waxa uu yidhi Nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaan amray in aan maal sadaqaysano. markaas ayaan is idhi maanta waa inaad Abubakar la tartantaa oo hanti badan aad la baxdaa. waxaan keenay maalkaygii kala badh. Nabiga ayaa sallallahu alayhi wasallam ay weydiiyey reerkaagii maxaad uga timid. waxaan ku idhi intaan in leeg ayaan uga imid. Abubakar ayaa isna maalkii sadaqada ahaa keenay. markaas ayuu Nabigu sallallahu alayhi wasallam ku yidhi reerkaagii maxaad uga timid.
waxa uu yidhi ilaahay ayaan uga imid markaas ayaan idhi dib dambe ula tartami maayo abubakar. dhacdadan kadib abubakar waxa uu noqday faqiir waayo maalkiisii oo dhan ayuu bixiyey laakiin caqliga faqiirka ma uusan noqon ee dhulka ilaahay ayaa uu u kacay oo wuu shaqaystay maalkana umuusan ururinayn inuu hodan ku noqdo ee waxa uu u ururinayay inuu isticmaalo ummaddana uga faa'iideeyo waana taas midda aynaan fahmin. ilaahayna mar labaad ayuu hodan ka dhigay markaas ayuu haddana hor ilaahay u bixiyey. qaybteennan maantu halkaas ayay inoogu eg tahay intaa qaybta kale ku kulmayno sidaas iyo ramadaan wanaagsan.